keenay allahna irzaaqo allahna dilo allahna nooleysiyo ayaa mahad oo dhan iska leh. halkaan maanta waxaan uga tacsiyeynayaa qoladii lagu dhibaateeyay hoteelkii xayaad lagu dhibaateeyay ay dhibaateeyeen qolada argagixisada arxan laawayaasha al-shabaab ayaan halkaan uga tacsiyeynayaa cid walba oo kaga dhimatay meeshaas. waxaan leeyahay ilaahay sabir iyo iimaan allah idinka siiyo, waayo waa ummad Soomaaliyeed annagoo dhan ayay naga geeriyoodeen, waayo geeridan waan u wada joognaa, waayo qof walbana wuxuu dhimanayaa waqtigiisa. ruux waqtigiisa galay ayaa dhintay. waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. intii ku dhaawacantayna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga rajaynaynaa inuu ilaahay boogahooda u caafiyo, ilaahay inuu caafimaad taam siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uga rajaynaynaa. maanta halkaas waxaan u soo fariistay oo shalayna mar aan ka hadlay, maantana mar labaad aan u soo fariistay inaan ummadda Soomaaliyeed aan wax isfahansiino, aan wax isku sheegno oo alla ka cabsiga aan isku sheegno, iyo al-shabaab inaysan islaamnimada ay waxba ku lahayn ayadana aan isfahansiino ayaan halkaa u soo fariistay. waxaan idin leeyahay walaalayaal, awalan al-shabaab wax islaamnimo ay gacanta ku hayaan ma jirto. soo ma aragtaan maalin walbo masjidul aqsa ayaa yahuud ku duuleysaa, yahuudda masjidka ku duuleyso aqsa ku duuleyso iyo al-shabaabka masaajidka hor fadhiisanayo ninka masjidka ka soo baxayo inuu dilo rabo waa isku mid. waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli kama ahan inaan ruux bini aadina naftiisa bil iskeersa u goysid, raalli kama ahan. maanta ma ii sheegi kartaan ruux bini aadina inaa masaajidka asoo ku jiro aan banaanka u fariisto aan dilo diinta sheegaysa ma ii sheegi kartaan? wuxuu la mid yahay walaalayaal kii masjidul aqsa u duulay oo yahuudiga ahaa iyo al-shabaab waxba isuma kay dooriyaan. halkaan waxaan uga baaqayaa midka yahuudka ah mahadkartay la dhaho iyo midka fircoonka ah cali dheere la dhaho iyo qolada la socota burcadda ah oo ummadda Soomaaliyeed baabi'intooda u soo jeesteen oo ummadda masaajidka ku xiran oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ku xiran masjidkii inay dadka uga daba tagaan gaareen oo inay daarihii ummadda Soomaaliyeed dhisteen ay qarash geliyeen inay ka burburiyaan maanta go'aankooda ka dhigtay. waxaan dhihi lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisa waa gooni, balse ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel allaala meeshoo joogo waxaan u sheegayaa annaga cadowga argagixisada al-shabaab meel allaala meeshay ku sugan yihiin waxa naga dhexeyn jiray colaad iyo dagaal iyo isdil. haddana sidii unboo nooga dhexeeya insha allahu tacaala. mar walbana waxaan diyaar u nahay nafsadda annaga nagu jirto inaan ummadda Soomaaliyeed ku badbaadino, mar walba hantida ummadda Soomaaliyeed inaan badbaadino, mar walba inaan nafta ummadda Soomaaliyeed idinki inaad dhibaataysaan aad diyaarka u tihiin waa inaan badbaadinaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ballan kula galnay. waxaan la hadlayaa ninka yahuudiga ah oo mahadkartay la dhaho iyo ninka kale yahuudiga ah fircoonkana ah cali dheere la dhaho, Soomaali ma dhammaanayso. ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu u qoray ayaa geeriyoonayso. waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay idaa jaa ajaluhaa laa yastacqiruuna saacatan walaa yastaqdimuun. waayo irsaaqdaada hal xaba beriisa adduunyada hadduu kuu yaallo hadday al-shabaab oo dhan isku tagaan kaama qaadi karaan. maanta waxaan ula jeedaa mas-uul walbo aan isla qaadano inay al-shabaab gaalo yihiin, inay al-shabaab gaalo yihiin ay caadeysteen inay masaajidda dadka ku dilaan. al-shabaab inay gaalo yihiin inay caadeysteen dameeradii ummadda watay inay ninkii dameerka wadayna dilaan, dameerkii alaabtiisa saaran inay gubaan ay caadeysteen. al-shabaab inay gaalo yihiin ay caruurta afduubtaan. marka walaalayaal sadar muuqda su-aalka dhan, waayo diinta islaamka ma ahan mid laga been sheegto. waxaan la socdaa inay xadiis ayaga ay soo qaataan oo xadiiskaasna ay ka been sheegteen oo laga wariyey ummuna Caaisha radia allahu canha. xadiiskaas wuxuu ahaa yakhshu jeyshulkacbati fa idaa kaanuu bibaydaa yaksifu biawalihim wa aakhirihim. markaas ayay ummuna Caaisha radia allahu canha waxay tiri yaa rasuulullah keef yacni waxaa ku jira dadkaas oo kacbada ku soo duulay oo gaalada ahaa kacbada ku soo duulay duulaanka ku ahaa waxa dhexdooda ku jira baynahum aswaaq kuwa suuqley ah, islaan sambuus gadanayso, oday miis gadanayo, nacnac iyo buskud gadanayo ayaa ku jire. yaa rasuulallah keef yacni yaksifu biawalihim wa aakhirihim, yacni hal mar see dhulka laisula goynaya intaas.
نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أولا كصلي النبي أمة المسلمين قال هذا يهود أنت على الشباب كجعلنا نوقم الجيران قدك ما نكعب سنين إن شاء الله تعالى حل والبنو أسر تاجنان دوغنا نبي كصلي صلى الله عليه وسلم مركز أي أمنا عائشة رضي الله عنه وحي كسر علسي يا رسول الله كيف يعني بينهم أسواق ضد سوق لي يا كجرا جناعته مركز أي النبي صلى الله عليه وسلم وحيري ثم يبعثون على نياتهم ثم يبعثون على نياتهم مركز وحلو لجيدا قلنا صحي أهايين قلنا كسر دولي كعبضة وإلهي سبحانه وتعالى ثم يبعثون على نياتهم قفك كلام ايش الجوجين وقف جناعته يوها ما أنت على الشباب نينك مساجد كوجرو أي الباب كوفر ديان وحيليهن جنا أيان ربنا نبى سوء عبادة سنة إلهي صوتوه جو نينكاس أيان دلينا أكادية جنا أيان كهلينا نين سحابي كميدا 10 مبشرين كا أيان نين إنه دلي أيو حوشيكتي جنا أيان كوجر هذين يا مركا وحان أشياء يا أورك أرجع حسد على الشباب أورك أوجس وحان أشياء يا إني أهل النار يهين إني يهود يهين دينت إسلام كأي وحبة كلهن مسؤول والبوحان كعد سنة يا مركو الشباب لا هذا يو هذا هو قلنا يهود الشباب قال هذا أن دينت إسلام كوحبة كلهن ومدة ديجو ذا بنستي وإن للد قاله وإن لسكد عيا وإن قد كذا الله قال إن شاء الله تعالى سومالي ميل العالمية جوكت إلهي درت عيدين جعلهاي على هذا سومالي لان كرس عطي إلهي أكبد باديو وقاذين يا دبعتك سعتي الله كبد باديو سوماليا ميل العالمية جوكت إلهي درت عيدين جعلهاي لا سعد عيدا كينا معهن مد أرجع حسد وأذيبه أرجع حسد مرول بوحان تاجنا وحيهين إيه شرفت هذا إيه حمانت هذا إيه وناجود إن شجنه أرجع حسد وناجود وحواي ويهود وناج إليهين وضدك مسجد القدس أسود دولي يهودي كسب بحري أو إسرائيل كسب بحري أو فلسطين كسب دوشي إيو اسمه دامان أرجع حسد على الشباب وحن ليه هاي معلوم والبوسود ديبان ما هتكرتي شيطان كأه إيجا ديوس فرعون إيو علي ديري أو عن إسلام لماذا عن وحبك شيء جنين عضت كوضو وإسوق جارا برعود كي هلا جارسي إن شاء الله تعالى أمد الصوماليات ميل الله لماشي جوكت أنت والدنيين تا وحيدين شيء يا جيرد إله سبحانه وتعالى جعنتي سأيكون جرتا روح بنا آدنا كمد لكره إلهي باوحوك ليه هاي لو اجتمعوك على أن ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله هذا أمد كلمان أي دهان ما أنت هبل وان دبعتين يا كم دبعتين كران إلهي سبحانه وتعالى وحوليه لو اجتمعوك هذي كلمان على أن يضروك بشيء وحبكوا مدمي كران إلا قد كتب الله إلهي وحقوق رموياني بل سوحان ليه أرجع حسد مردو إن شاء الله تعالى وأنا عربتري دونا قد الله لقد كيكو جيران الله قد دونا مدحنا سنة وحان كعد سنة يا إني أمر بوحو يفسح بوحو عيدا كأيسيان الشباب ميل الله لميشي جوغان إن لقر هذيو odaygan fircoonka cali dheere iyo odaygan oo mahadkaratay yahuudiga ayagoo xirxiran inaan keeni doono insha Allah taala ilaahay baan kula balanay wadankaas dhiigeena ayaan diyaar lanahay dawladda waxa laga doonayaa insha Allah taala inay sida annaga aan dhiigeena u ogolaanay inay ayadana u ogolaato inay amarka bixiso annagana aan soo qabanay insha Allah taala Soomaaliyeey ilaahay dartiis ay idin jeclahay dib walbo idin ku soo socdana diyaar ayaa u nahay qaraxa ina annaga isku dhigna diyaar ayaa u nahay nafteena inaan u waayno diyaar ayaa u nahay argagixisada al-shabaab mardhow meel ba idin ka saari doonaa wabillahi tawfiiq wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato halkan waxaan ka salaamayaa kale madaxweynaha qaranka mudane xasan sheekh maxamuud halkan ayaan ka salaamayaa ra'iisul wasaare xamza halkan ayaan ka salaamayaa madaxda aanan soo tirin karin maanta aan koobi karin mid walba waxaan ku salaamayaa mansabka imaamuuska oo asiga ku fadhiyo kursiga ayaan ku salaamayaa insha Allah taala waayo waa inaan ka wada shaqeynaa wanaaga wadanka waa inaan ka wada shaqeynaa horumarka wadanka waa inaan ka wada shaqeynaa annaga dhan aan wada naqanaa shacabka hataa waxa laga doonayaa dagaalka inay ka qayb qaataan shacabka waxa laga doonayaa dagaalkan inay ka qayb qaataan waayo cadawga argagixisada al-shabaab ma ahan attack kaliya inuu ciidanku ku yahay wuxuu attack ku yahay shacabka ayuu attack ku yahay masaakiinta ayuu attack ku yahay xayawaanaadka ayuu attack ku yahay wuxuu attack ku yahay nin walba guri qurxan dhistay inuu ka dudumiyo attack ku yahay marka inaan ka wada shaqeyno insha Allah taala Soomaaliya ha noolaato al-shabaab ha baabo Soomaaliya ha noolaato wabillahi tawfiiq wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh